shirkadda bixisa internetka awoodda badan ee soo gasho ayaa macaamiisheeda kala duwan ee isticmaasha internetka shirkadda soo u kordhisay xawaaraha internetka bilaha Abriil iyo May. madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda soo Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakoob ayaa ka waramay macaamiisha kala duwan ee shirkadda soo xawaaraha ay u kordhiyeen iyo sababta ay ugu kordhiyeen macaamiishooda. dhammaan bulshooyintayada iyo macaamiishayada waxaan ugu bushaaraynaynaa bilaha Abriil iyo May inay shirkadda soo ay garatay inay bulshadeeda iyo macaamiisheeda u kordhiso xawaaraha munaasabadaha isbarkan awgood. munaasabada koowaad oo ah curashada inagu soo foodleh ee bisha barakaysan ee Ramadaan, ciidda ku xigta ee Ciidul Fidriga ah iyo soddonguurada laga joogo markii Soomaaliland madax banaanideeda iyo dawladnimadeeda dib ula soo noqotay oo sanadkan 30 jirsatay. saddexda munaasabadood iyo soo laba kaclaynta xanuunka COVID-19 Allah inaga salaamad yeelay waxaanu garanay in aanu bulshadayada iyo macaamiishayada ku dhaqan caasimada gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u kordhino xawaarihi. shirkadda soo waa shirkad la dareen ah bulshadeeda, farxadooda la faraxaysa, dhibaatooyin iyo markay xanuuno iyo la yimaadaanna garab taagan. sida ajligeed munaasabadaha isbarkan awgood ee xanuunkaas soo laba kacleeyay dartii waxa aanu garanay in aanu xawaaraha internetka aanu bulshadayada aan u kordhino. macaamiishayada waxaanu leenahay hal laga faa'iideysto internetka